ولا xogan ayaa laga muujinayaa xaaladda shaqaale saarnaa markab shidaal oo lagu afduubtay meel u dhow xeebaha Soomaaliya iyadoo qoyskooda ay sheegeen in ay heleen hanjabaado toos ah uga yimid kooxaha heesta ehelada la heestayaasha ayaa sheegay in wada hadallada lagu doonayo sii deentooda ay wajahayaan caqabado cusub halka afduubayaashuna ay ku hanjabeen inay dilayaan shaqaalaha markabka haddii aan si degdeg ah loo bixin lacagta madax furashada ee ay dalbanayaan sida ay sheegeen qoyska badnaaxadiinta 8 muwaadin oo Masri ah iyo 4 Hindi ah ayaa wajahaya qatar sii kordhaysa kadib markii kooxda afduubka geysatay ay sare u qaaday cadaadiska ku aadan bixinta lacagta madax furashada xaaska mid kamid ah madaxinta ayaa warbaahinta u sheegtay in heshiis hore laga gaaray lacagta madax furashada uusan hirgelin sabab la xiriira dib u dhac ku yimid habraacyada xawilaadda lacagaha arintaas ayaa la sheegay in ay carro ka dhalisay afduubayaashii marka ka qabsaday wararka ayaa intaasi waxay ku dirayaan in kooxda hubeysan ay ku ajabtay in qaar kamid ah shaqaalaha uu wareejin doonto dhul boolare ah oo fog si cadaadis dheeraad ah loogu saaro milkiilayaasha markabka iyo sidoo kale dhinacyada ku lugta leh wadaxaajoodka dhinaca kale dawladda Masar ayaa sheegtay in ay si dhow la socoto xaaladda muwaadiniinteeda iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi ay kaashanayso safaaradda Masar ee Muqdisho iyo hay'adaha amniga ee qowsayso si loo xaqiijiyo sii deynta la heestayaasha xiisadda ayaa sii korortay kadib markii milkiilaha markabka uu codsaday waqti dheeraad ah oo lagu dhameystirayo bixinta lacagta madax furashada balse afduubayaashu ay diideen codsigaasi iyagoo ku hanjabay inay qaadi doonaan tallaabooyin dheeraad ah haddii aan la bixin lacagtaasi khubarada dhanka maraakiibta ayaa sheegaya in hanjabaadaha noocan oo kale ay marar badan loo adeegsado cadaadis nafsi ah oo lagu dardargelinayo wadaxaajoodka madax furashada inkastoo ay wali jirto cabsi laga qabo badqabka shaqaalaha la afduubtay dhacdadan ayaa mar kale dib u soo nooleysay walaaca laga qabo kororka falalka burcadnimo ee ka dhacaya marinbiyoodka muhiimka ah ee ku teedsan xeebaha Soomaaliya halkaas oo maraakiibta ganacsiga ay muddooyinkii la soo dhaafay wajahayaan khatar amni oo is soo taraya